السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود يا dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha. halkani waa channelkeena ciyaaraha maanta iyo sidoo kale page-keena ciyaaraha maanta. aad iyo aad baan idinka raali gelinaa saxaabteena inuu idinka mashquulay isla markaana aynu hakad yara gelin barnaamijyadeena xiisaha badnaa sida suuqa kala iibsiga iyo wararka ciyaartoyda bisha January ee ugu dambeysay dhacdooyinka kubadda cagta. aad iyo aad baan idinka raali gelinaa asxaabta. isku soo noqon wanaagsan baan leenahay إن شاء الله بإذن الله الكريم ممكن ستوسع مشغول كاون كبحني سوى نكتب ما شاء الله وما الله ونتك سوق بيندونا ما أنت وحنك سوق عدنا ورركي قدام بي سوق كذا يبسيجا ما أنت أحد السجال كبيش الجنوري ما دام السوق السجال يشوفرني هاي وعيرتي بدنا لك الورقة إسلام مركانا قار كلا لرجيني أنت أو فرني سوقين لك الورقة لك كلا وحن سوق عدنا وين يجدونا تاريخ دا كوب كوبا دا أفريقيا iyo sidoo kale kooxaha xulalka ugu guulaha badan iyo xilliga iyo waqtiga la ciyaaray labada xul caawa lagu bilaabi doono. aan ku bilaabo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa rajeynaya in xagaaga dambe uu si rasmi ah ugu biiro kooxda Manchester City taasoo iska leeyihiin mulkiilayaasha Arbeed reer Gadar. Erling Haaland waxaa la soo warinayaa oo ay shabakadda Daily Mail qoraysa in ay iskaga baxday saxiixiisa kooxda Manchester United sidoo kale ay Real Madrid ka wacatay oo ay doonayso Kylian Mbappe isla markaana Erling Haaland waxa uu niyadda gashaday inuu ku biiro doono kooxda Manchester City. Erling Haaland ayaa sanadkan waxa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah isagoo 17 kulan u saftay goolal dhowrna dhaliyay tartamada oo dhan waxa uu saftay 19 kulan aan idhaahdo yaan oran 17 waxaan u dhaliyay 17 gool iyo 6 caawin. dhanka kale kooxda Barcelona ayaa aad u xiiseynaysa Alvaro Morata kaasoo ay iska leedahay kooxda Atletico Madrid laakiin waxa uu ku joogaa ama kooxda Juventus. waxaa la sheegay in kooxda Juventus si sahlan ku ogolaan doonin ay shabakadda AS ee dalka Isbaaniya sheegaysaa isla markaa ilaa ay bedelkiisa helaan. dhanka kale kooxda reer Talyaaniga Lazio ayaa waxay doonaysaa goolhayaha Chelsea ay qaatiyaanka ka taagan tahay ama quusti ka taagan tahay ee Kepa Balaga kaas oo imanka ay Chelsea bedel fiican haysato goolhayaha reer Senegal ee Mendy. kooxdaas waxaa la leeyahay mushaharkiisa ayaan bixin karayn kaas oo 170 pound ayuunbaa caqabad ku ah maxay hatay kooxdan Lazio si uu la wareegto. dhanka kale kooxaha loo yaqaano in Aston Villa maxay hatay West Ham United Newcastle kuwaasoo dhan ayaa waxay doonayaan weeraryahanka kooxda Marseille ee Bamba kaasoo qiimihiisu aanu aad u qaalahayn isla markaana laga yaabo in la wareegaan kooxaha dhowraha oo ka ciyaara Premier League. haddaan ku soo gabagabayno waxaa la leeyahay ninkan u ciyaarayeen kooxdan loo yaqaano maxay hatay Barcelona iyo Sergio Dest ee difaaca ayaa waxa doonaysa kooxda Chelsea si ay ugu buuxiso boosaskii ay baneeyeen Ben Chilwell iyo Reece James kuwaasoo in badan kaga maqnaa dhaawac kaga maqnaan doona kooxda Chelsea. ugu dambeyntii kooxda Aston Villa waxay si rasmi ah ula wareegtay maalmo markuu faraasuuqo xidigihii hore ee kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Brazil ee Felipe Coutinho oo Steven Gerrard saaxiibkiisa Steven Gerrard ku soo celiyay Premier League. kooxda Barcelona ayaa amaah ku soo bixisay waxaana laga yaabaa inay si toos u iibsadaan suuqa xagaaga dambe. haddii halka ka baxno wararka ugu dambeeyay ciyaaraha ee suuqa kala iibsiga aan soo qaadano koobka Afrika. koobka Afrika waxaa si rasmi ah loo bilaabay sanadii 1957 ilaa iyo 60maadkii waxaana lagu bilaabay 4 koox oo kala ahaa wadamada South Africa iyo maxay hatay Sudan Egypt iyo dalka Ethiopia. wadamada ugu badan ee koobkan 7 jeer ku guuleystay wadanka Masar waxa ku xiga koox wadamada Cameroon iyo Ghana oo 3 jeer haya. caawa ayaa si rasmi ah loo baasi doonaa iyadoo uu ka dhici doono koobka Afrika sanadkan wadanka Cameroon halkaas oo ay foodo isku dari doonaan caawa oo lagu furi doono groupka A oo ay wada dheeli doonaan Cameroon iyo Burkina Faso. Cameroon waa koox adag waa xul adag isla markaana
koobkii ay sanadkii ugu dambeysay ay difaacanayso xulka Algeria sanadkii kale kasii horeysay 2018 17 ayaa waxa ku guuleystay wadanka Cameroon marka Cameroon waa wadan adag waxay la ciyaari doonaan Burkina Faso taasoo aan hore ugu guuleysan koobkan wayna eegi doonaa waxa ka soo baxa wadamada Afrika iyo koobka Afrika cidii ku guuleysan doonta xidigaad waaweyn ayaa ciyaaraya koobka kubadda cagta Afrika waxa kamid ah weeraryahanka dunida imaka kuwa ugu qaalisan lagu tiriyo Mohamed Salah iyo sidoo kale Sadio Mane Khalidou Koulibaly Emerick Aubameyang waxa ciyaaraya kale Riyad Mahrez xidiga waaweyn ayaa ciyaaraya waxaana la sheegayaa inuu ugu adeegay maanta xulka Senegal kaasoo qiimo aad ballaaran ku fadhiya iyo wadanka Algeria inta hadan kaga soo gudubno wararkeena ugu dambeeyay maanta ciyaaraha aan ku soo gabagabeeyo waxa dhawaan la bixin doonaa 17 bisha January xidigaha adduunka ugu wanaagsan FIFA best baa la bixin doonaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa sanadkii 2021 waxaana iskugu soo haray baa la sheegayaa saddexda xidig ee Cristiano Ronaldo Lionel Messi iyo Mohamed Salah haddaba waxa la soo warinayaa warar hoose la soo dusiyay ay sheegayaan in uu ugu cadcad yahay ku guuleysigiisa kabtanka wadanka Argentina iyo kooxda Paris Saint-Germain Lionel Messi kaasoo sanadkii ugu dambeeyay uu cadar badan soo dhigay waqti fiican ku soo qaatay kooxda Barcelona sidoo kale ku soo guuleystay koobkii Latin America wayna eegi doonaa cidda ku guuleysata haddaba daawade dhageysta adigu yaad u rajeynaysaa inuu noqdo sanadkan 2022 the best player ka adduunka halkaas waxaan ansaxo aan idhaahdo Cristiano Ronaldo kuma jira ee waxa weeyaan Lewandowski xidigaha kooxda Bayern Munich intaas ku soo gabagabeynaya